waa rasuulkii iyo nebigii saddexaad ee Ilaahay uu soo diro. Waxaa loo soo diray dadkiisii oo Alle ka sokow caabudayay 5 nin oo ka mid ahaa reerkaasi. Way beeniyeen in yar mooyaane ka hor intaan Allah subxaanahu wa tacaala ku halaagin duufaan aan waxba ka reebin. Waxaynu u jeednaa Nebi Nuux calayhi salaam. Dadkii ka dambeeyay Nebi Idris waxaa ka mid ahaa 5 nin oo wanaagsanaa, kana mid ahaa dadka Ilaahay dartiis u cibaadaysta, dacwadda Allahna faafiya. Waxaana la kala oran jiray magacyadooda Uddi, Suwaac, Yaaqoos, Yacquud iyo Nasri. 5tii nin ee wanaagsanaa way dhinteen. Kadibna dadkii ayaa ka murugooday dhimashadooda. Kadibna dadkii ayaa go'aansaday inay sameeyaan sanabyo muuqaalkoodana u eg say ugu xasuustaan wanaaggoodii iyo dadaalkoodii. Sanabyadii ayay xardheen, ma aysan caabudin, ee keliya in lagu xasuusto daraaddeed ayay u sawireen asnaamta u sameeyeen. Muddo marka ay ka soo wareegtay oo ay dhinteen jiilkii koowaad, ayaa waxaa yimid jiilkii ku xigay. Ibliis ayaa ugu sheekeeyey in aabbayaashood iyo faracoodii hore ay caabudi jireen asnaamtan, sidoo kalena ay leeyihiin awood ay wax ku tari karaan dadka, iyo inay dhib u geysanayaan ciddii inkirta ilaahnimadooda. Dadkii waxay bilaabeen inay sanabyadii u sujuudaan oo ay wax weydiistaan, iyagoo hilmaamay ballantii ay Ilaahay ka qaadeen bila'aadanka oo dhan, taasoo ahayd inaysan caabudin cid aan Alla ahayn subxaanahu wa tacaala. Sidoo kale hilmaamay tilmaamihii laga dhexlay Nebi Aadan calayhi salaam, Nebi Idris iyo dadkii wanaagsanaa ee ka dambeeyey. Markii dadkii ay caasiyeen rabbigoodii Alla subxaanahu wa tacaala, waxa uu u soo diray nin iyaga ka mid ah oo ugu yeera xaqa. Waa nebigii iyo rasuulkii Alle ee Nuux calayhi salaam. Nebi Nuux wuxuu ahaa dhowrsane runlow ah. Waxa uu ahaa durriyaddii Nebi Idris calayhi salaam. Sida uu qoray Ibnu Kathiir, abtirsiga Nebi Nuux calayhi salaam waxa uu ahaa Nuux ibnu Laamaka ibnu Tashaalix ibnu Idriis calayhi salaam. Alle ayaa u doortay inuu fariintiisa xambaaro, ummaddana uga digo shirkiga iyo fasahaadka ay ku jiraan. Qisada Nebi Nuux meelo badan ayay qur-aanka uga soo aroortay, si gaar ahna suuraddan oo magaciisa wadata ayuu Alle u gooni yeelay qisada dhex martay Nebi Nuux calayhi salaam iyo qoomkiisii. Magaca Nebi Nuuxna 43 jeer ayaa lagu sheegay. Alle ayaana ku sharfay dadka uu u doortay inay dhambaalkiisa xambaaraan. Sidoo kale waxa uu ka mid yahay 5 nebi ee Alle uu u bixiyey ulul casmi, laguna sifeeyey dulqaad iyo inay ballan adag la galeen Alle subxaanahu wa tacaala. Kuwaasoo kala ah Nebi Nuux, Nebi Ibraahim, Nebi Muuse, Nebi Ciise, Nebi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Nebi Nuux iyo Nebi Aadan calayhi salaam waxaa u dhexeeyey 10 qarni, sida ku soo aroortay xadiis uu Abudarri warinayo. Su'aal uu weydiiyey Nebi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, oo ahayd imisaa u dhexaysay Nuux iyo Aadam. Rasuulka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ayaa ku yidhi 10 qarni. Ibnu Kathiir oo arrintaasi fasiraya ayaa yidhi shardi ma ahan in qarnigu 100 sano noqdo sida tirsigu yahay, balse haddii sidaas loo dhaafo waxa ay noqonaysaa in Nebi Nuux iyo Nebi Aadan ay u dhexaysay 1000 sano. Muddadaasna dadku lama imaan shirki ama gaalnimo. Ciddii ugu horraysay ee gaalnimo ku dhacday waxay ahayd qoomkii Nebi Nuux. Nebi Nuux wuxuu ahaa rasuulkii ugu horreeyey ee loo diray dad shirki iyo gaalnimo la yimid. Nebiyadii ka horreeyey dadka ayay xaqa ku boorin jireen. Dadkii ka horreeyey qoomkii Nebi Nuuxna waxay ahaayeen dad wanaagsan oo aan la imaan wax shirki ah. Waxa uu adeegsaday qaabab kala duwan oo uu dacwada ugu bandhigay qoomkiisa. Waxa uu u yeeray goor hameen ah iyo goor maalin ah. Sidoo kalena dacwaddii sare ayuu ugu qaaday, mar kalena hoos ayuu ugu dhigay qoomkiisii. Waxa uu la hadlay iyagoo keli ah iyo iyagoo wadar ah oo dad badan ah. Wuxuu ugu tegey guryahooda iyo suuqyada. Wuxuu la hadlay dumarkooda, wuxuu la hadlay carruurtooda iyo ciroolahooda, taajirkooda iyo faqiirkooda. Laakiin nasiib darro, qoomkii Nebi Nuux badankood way diideen dacwaddii loogu yeerayey, iyagoo ku adkaystay gaalnimadii iyo asnaamtay caabudayeen Ilaahay ka sokow. Nebi Nuux calayhi salaam isagoo qoomkiisa xaqa ugu yeeraya ayaa haddana waxaa loo geysan jiray dhibaatooyin waaweyn oo isugu jirta naf iyo maalba. Waxaa lagu xadgudbay sharaftiisii, waxayna ku tilmaameen inuu waalan yahay, beenaale, sixiroole iyo tilmaan kaste oo xun, si ay uga hortagaan in ay dadku warkiisa aaminaan. Waxaa aad uga soo horjeestay madaxyaweyntii bulshada sida odayaasha,
ganacsatadii iyo inta bulshada horseedka u ah. Dadka rumeeyey waxay u badnaayeen dadka saboolka ah. Gaaladuna mar kasta waa ay ku maadsan jireen, iyagoo leh intii noogu doqonsanayd ayaa ku raacday, iyo kuwa liita iska reeb aan ku raacne oo aan warkaaga aaminno. Dadka dhibka ugu badan u geysanayay waxaa ugu horreeyey xaaskii nebi nuux. Waxaa la dhihi jiray Waahila, waxayna ahayd qofka gaalada ku tiraahda warkiisa ha yeelina, odaygaygu waa waalan yahay. Waxayna dadka soo islaamay ee tabarta yar u sheegi jirtay madaxda gaalada, kadibna ciqaab iyo dhibaato ayay u geysan jireen dadkaas masaakiinta ahaa. Muddo dheer ayuu dadka u yeerayey, waxaana rumeeyey dad aad u yar. Xaaskiisii iyo wiilkiisii ayaa ka mid noqday dadka diiday farriintii uu xambaarsanaa. Halkaasna waxaa Alle subxaanahu wa tacaala tusaale uga dhigay ciddii nebi nuux ka dambaysay inaysan diintu dhexaltooye ahayn, ee ay tahay hanuun Alle oo cidduu doono uu geliye qalbigooda. Qoomkii nebi nuux waxay dhibsadeen soo noqnoqodkiisa uu ugu yeerayo diinta xaqa ah, iyo sida uusan uga daalayn inuu ku boorriyo mar kasta inay shirkiga iskaga tagaan. Mar kasta uu isdhaho ereyga tawxiidka ugu yeer, waxay dhagaha gashan jireen farahooda si aysan u maqal ereyga xaqa ah ee loogu yeerayo. Sidoo kale dharkooda ayay dusha iska saari jireen si aysan u arkin nebi nuux iyo inta la socota ee rumaysay marka ay jidka marayaan, sida Alle subxaanahu wa tacaala noogu sheegay aayadaha 5 iyo 12 ee suuratul nuux. Nebi nuux calayhi salaam waxa uu yidhi, Ilaahayow, qoomkaygii waan u yeeray habeen iyo maalinba, yeeridayduna uma siyaadin wax aan firxad ahayn. Mar kasta oo aan u yeero si aad ugu dambi dhaafto, waxay faraha geliyaan dhagahooda, maryahoodana way isku dadaan, wayna ku madax adaygaan xumaanta, wayna isweyneeyeen. Haddana si kor ah ayaan ugu yeeray, waanan u qayliyey, hoosna waan ugu yeeray. Waxaanan ku idhi, rabbigiinna dembidhaaf weydiista. 1,000 sano ku dhowaad ayuu nebi nuux calayhi salaam u yeerayo qoomkiisii. Kadib intay u yimaadeen ayay ku yidhaahdeen, nuuxow, waad nala murantay, oo weliba murankaagii waa nagu batay, ee na tus cadaabkii aad sheegaysay. Nebi nuux oo aan weli ka quusan qoomkiisii ayaa waxa uu ugu jawaabay, haddii Ilaahay doono wuu idiin keeni karaa cadaabka aad dalbanaysaan. Cadaabka Allana ma caajis gelin kartaan. Gaaladii markay arkeen inuu weli dacwaddii uu wado, ayay uga hanjabeen isaga iyo intii raacday inay dhagax ku dili doonaan haddii uusan arrintan ka harin. Nebi nuux calayhi salaam markuu ogaaday inaysan cid kale rumaynayn, ayuu habaaray qoomkiisii, sida ku soo aroortay aayadaha 25 iyo 26 ee suuratul nuux. Nebi nuux inuu weydiistay Allah inuu halaago qoomkan dulmiga sameeyey. Isagoo gacmaha kor u taagaya ayuu yidhi, Rabbiyow, ha kaga tegin dhulka korkiisa gaalada ruuxna, maxaa yeelay haddii aad kaga tagto waxay luminayaan addoommahaaga, mana dhalayaan waxaan ahayn gaal xun oo faajir ah. Nebi nuux calayhi salaam waxaa loo waxyooday inuu sameeyo doon saxaraha dhexdiisa. Wuxuu u guda galay inuu soo jaro dhirta, uuna soo ururiyo looxyada uu ka samaynayo doonta. Kadibna Allah subxaanahu wa tacaala ayaa baray qaabka uu u samaynayo doonta. Waxaa la faray in looxyada uu isdul saaro, kadibna uu ku dhajiyo masaamiir. Qoomkiisii oo yaaban ayaa soo hormaray nebi nuux, iyagoo jeesjeesaya, iskuna dhahaya, maxaa ku dhacay nebi nuux? Ma wuxuu noqday najaar? Aaway diintii uu inagu yeeri jiray? Kadib markii loo sheegay inuu samaynayo doon, oo dhaheen doon saxaraha taalla, waa waalidiisii aan ku sheegi jirnay, mana aysan fahmin waxa ka dambeeya iyo halaagga loo sii diyaariyey. Nebi nuux calayhi salaam markii uu dhammaystiray doontii ayaa loo waxyooday, markaad aragto calaamad iyo astaan loo sii sheegay inay doonta fuulaan isaga iyo cidda rumaysay, sidoo kalena xoolaha uu ka qaado lab iyo dhadig mid kasta. Calaamaddii markii ay muuqatay ayuu nebi nuux calayhi salaam amray in ciddii rumaysay iyo ehelkiisaba ay fuulaan doonta. Sidoo kalena hawayaankii oo dhan lab iyo dhadig ayaa la saaray doontii si aysan halaagaas ugu dabargo'in. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa amray in dhulka iyo samada inay soo burqiyaan biyaha ku jira. Waxaa bilowday cadaabkii, samada ayaa soo daysay biyo aan kala go' lahayn. Sidoo kale dhulkuna waxa uu soo daayey biyo, waxayna ku kulmeen meel cayiman. doontii nebi nuux calayhi salaam waxa ay dul heehaabtay mawjadaha biyaha. nebi nuux calayhi salaam wuxuu arkay wiilkiisii ka gaaloobay oo go'doonsan, kadibna wuu u yeeray oo wuxuu ku yidhi, wiilkaygiiyow soo ful doonta. hase yeeshee wiilkiisii oo madax adeeg iyo gaalnimo ku jirto, waxaan fuulayaa buurta, imana soo gaarayaan biyuhu. wiilkii nebi nuux halkaas ayuu ku qarqoomay. sidoo kale gaaladii qof kama badbaadin. doontii waxay istaagtay meel buur ah. taariikhyahanada ayaa meelo kala duwan ku sheega halka ay buurtaasi ku taallo. qaar ayaa ku sheega Ciraaq inay ku taallo, kuwo kalena
Turkiga inay ku taal. Sidoo kale waddamo badan ayaa lagu sheegaa inay buurtaasi ku taallo, balse sida saxda ah Allah ayaa og. Markii Nebi Nuux calayhi salaam iyo intii la socotay ay badbaadeen, Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu amray inay samadu joojiso biyaha soo burqanayay, dhulkana uu leeqo biyaha. Samada iyo dhulka way joojiyeen biyihii iyagoo adeecaya amarka Allah. Nebi Nuux iyo intii rumaysay waxay dunida sii joogeen muddo sannada ah oo ay caabudayeen Allah subxaanahu wa tacaala. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما